Gudoomiyihii degmada Yakshiid Axmed Maxamed Xasan Geedow ayaa la sheegay in lagu sameeyay shaqo joojin kadib amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Axmed Maxamed Xasan Geedow ayaa waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin sida ku xusan qoraan shaqada looga joojiyay Geedow oo soo baxay toddobaadkan. Qoraalka shaqada looga joojiyay Geedow waxaa ku saxiixnaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xuseen Maxamed Nuur. Wareegtada ka soo baxday kusimaha duqa Muqdisho waxaa xilka gudoomiyaha degmada Yakshiid si hayo looga dhigay gudoomiye ku-xigeenka degmada Yakshiid ee dhinaca arrimaha bulshada. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer sidan oo kale waxa ay shaqada uga joojiyeen mas'uuliyiin sarsare. Waxaa ka mid ahaa gudoomiyihii degmada Xamarweyne, sidoo kale waxaa ka mid ahaa taliyaal ciidanka milishiibiyada ah oo degmooyinka qaar ah, kuwaasi oo qaarkood loo jeediyay eedeymo musuqmaasuq. Sidoo kale shaqaale ayaa jira eedeymo arrimahaasi ku saabsan shaqada looga joojiyay, qaarkoodna shaqada dhan laga saaray markii lagu helay cadeymo la xiriira musuqmaasuq ay sameeyeen. Maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayo Injineer Yarisow ayaa waxa uu xilka hayaa muddo xilligan ku dhow sanad, waxaana arrimahan ay noqdeen kuwo soo noqnoqda oo maamulku uu kula dagaalamayo musuqmaasuqa. Balse dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in Soomaaliya ay tahay dal aan musuqmaasuqa laga baabi'in karin oo wadanka oo dhan uu yahay mid musuqmaasuq hareeyay.